بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتوا عنا ونكسر داود اللبانتي بهالكن وتلفزيون عالمي جاي هو كيبل تي في حرتي مقالة هرجيسة داود الهانتي بكوس وهذا برنامج كان يدبح حوس تاريخ هذا نوكلات كذا وطن تلفزيون عالمي جاي هون كيبل تي في برنامج كان عن تضباط كستبان كوس وقعدنا ما نسكور برنامجنا حكومة دي هو رئيس مالنا صومر ما هذا الله هو رئيس سياسيين تقول هذين أما مدحوين ياشوا بلنقاذ برشة أسميين يسيداني وحبوق قبل waxaan toddobaadkii hore idin ballan qaadnay balina idin soo gudbino sidee uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu la shaqeeyay ama uu la dhaqmay afartii madaxweyne ee kala ka horeeyay haday noqoto mucaaradad intii uu ku hayay iyo waliba haday noqoto intii uu la soo shaqeeyayba maxay saayiga ka aaminsanay madaxweynayaasha qaarkood oo ka hadlay shakhsiyadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee barnaamijkan idin ku hayna iyadoo la fulinayo xeerkii ururkii SNM ee dhigayay in marka ay guuleystaan gacantana ku dhigan deegaanada Soomaaliya talada dalka hayaan labada sano ugu horeeyay ee shirkii ay beelaha Soomaaliland isugu yimaadeen magaalada Burco waxa lagu fuliyay xeerkaasi waxaana madaxweynaha Soomaaliland ee koowaad noqday Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur halka madaxweyne ku xigeenna uu noqday Xasan Ciise Jaamaca muddada labada sano ee xilka hayay Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur ayaa mucaaradad xoogan uu kala kulmay siyaasiyiin ay ku soo wada jireen SNM waxaana kamid ahaa madaxweynaha haatan talada dalka hayay Muuse Biixi Cabdi isagoo waqtigaasi dalbanayay in la isugu yimaado shirbeele si looga tashado ayaha dalka isagoo waqtigaasi aaminsan in xukuumaddaasi Tuur ay ku fashilantay hawlihii shacabka Soomaaliland ay ka sugayeen waxaana sidaas madaxweyne Biixi waqtigaasi uu ku sheegay wareysi lala yeeshay 1993 waqtigaas la qabanayay shirkii Boorama waxaana wareysigaasi uu ku xusay in shirbeelaadka وها كي أي دلبنيين إستجيب كوحدي كله للسعودي. وحكى هذا دونا شركه. نبضين تبيلها يا كاترين السوالي لان. سيدي مقعيس وهو بحي الشيخ لو وصل شيء. أي كاترين تاسم مركم حد ولا شيء ده. أي كاترين تو حوي إن لو صار دست دولة صلب اللارن ما دام مدة أسلم حكم كأي هيسوي لما هذي. موسى واحد شرتين تي كوريسي أما أنا ده ضوا سنة كيودن بيبه. إن كوحدين معارضة هيدا عدسن شرتين شراية كترينات شر بلاد شر قرن شر كان شر كم دي. أوكي أنا عدسنني إن السؤال لازم هذا أي مال واحد اللي قتله واحد لسه. أوكي أنا باغي. حبنا جورت كم يدبا ودينا. ما عرفت بس تمت. إن وحى شرت فكرة الله نسموسه ما دام إن kalfadhigii labaad ee golaha dhexe sanamtu Burco uu ku go'aamiyay in muddo 2 sanadooda ay dawladani xukunka gacanta ku hayso dawladana tahay tii SNM dabadeedna ay diyaariso si dastuurkeeduna uu sheegayay nidaamka xisaabta badan leh labadii midna lama diyaarayo faakiin baa in lagu soo socdo in SNM muddada loo kordhiyo ma qabtaado haday umadu u garato umada isu timid waxay garato ma ka soconaa marka umada isu imanaysa odayaashun baa dadweynaha matalaya dadka ku nool Soomaaliland aad baad maasantay Muuse shirkaasi Boorama ka dhacay 1993 ayaa lagu doortay Rabbi naxariisi jannaha ka waraabiya Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal halka ku xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan Cali Faarax kuwaas oo noqonaya madaxweynihii koowaad iyo ku xigeenkii labaad waxaana xukuumaddaasi madaxweynaha tantalada dalka haya uu ka noqday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waqtigaasi wasiirka arrimaha gudaha waxa dalka ka dhacay dagaalkii sokeeye ee dhacay horaantii 1994 madaxweynaha tantalada dalka haya ee Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka tagay xilkii wasaaradda arrimaha gudaha kadib markii uu xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxaana waqtigaasi uu ku biiray siyaasiyiin mucaarad ahayd oo ka soo horjeeday xukunkii marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxaana madaxweyne Biixi oo waqtigaasi warbaahinta la hadlay uu ku eedeynaya madaxweyne Cigaal inuu taladii dalka ku ururiyay siyaasiyiin ka soo jeeda beeshiisa waxaana eedeynta uu maalintaas u jeediyay kamid ahaa suldaanka xiraya oo siyaasi aan xiraya oo ninka ilaahna taagi baan ku dalbanaya oo distoor baan ku dhaqmaya oo talan wadaagana Soomaaliya ku fashirayso ina been sushi maxamed xaaji Ibraahin Cigaal oo cid isku haleynay ma garanayo Soomaaliland ku dhismi mayso maxamed xaaji Ibraahin Cigaal oo yiraahdo gar iyo gardaran ku soo baxaya maanta
madaxweyne cigaal hal baan leh maxamed xaajiraan cigaalow mudana madaxweyne ma 8 jir baa tahay ma 40 sano ayay Soomaaliland tala ku muuday ma 9 sano ayaa Soomaaliland hor fadhiyo ma maanta dhufay isku raay ka qootay ma maanta taang iyo teknika u dalbatay salaadiintii adiga ku calaamad saartay ma maanta ayaad awoodii ku soo ururisay in aad isku sugnaatid daakhiliga xaakimkii sare xeer ilaalintii taliye ciidan ma maanta awoodii ku soo ururisay in suldaanada uu xukumo maanta sideeta soo siyaasadda hadday halka ku soo ururtay waxaan kugula talinayaa wixii hore lagu yiri anoo ognahay aqbalay maanta waxay danta Soomaaliya ku jirtaa oo aad Soomaaliland wax ugu taraysaa adiga oo ka baxata tartanka siyaasadda waxaad wax ugu taraysaa adiga halka fariista maanta waxa qura kula gudbaro waxa weeye adoo salaadiinta xirna sii daaya kuwa kalena wada hadal la galo aan shuruud lahayn dawdal hadii markaas ay barbarino xukuumadda uu maanta hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waqtigaasi eedeymaha uu jeedinay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo ahayd in shakhsiyaad ka soo jeeda beeshiisa ama siyaasiyiin oo xilalkii ugu miisaanka cuslaa qaranka uu ku hareeriyay isla markaasina uu dhiibay haddaba maanta madaxweyne Biixi oo isagu talada dalka haya maxay bulshadu iska barbardhigi kartaa eedeyntaasi uu maalintaasi madaxweyne Biixi u jeedinayay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo maanta xukuumadda madaxweyne Biixi sida ay u dhisan tahay waxaana jira saluug badan oo ay bulshada Soomaaliland ka qabto iyadoo inta badan madaxweynaha lagu eedeynayo inuu talada dalka markasta u badinayo reerkiisa waxaana waqtigaasi madaxweyne Biixi isagu Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal uu ku eedeynayay inuu talada dalka ku badiyay beesha uu ka soo jeedo isagoo waqtigaasi farta ku fiiqay xilal ay kamid yihiin maxkamadda sare iyo taliyaha ciidanka qaranka waxaana maanta ay bulshadu kala ragsan tahay cidda xilalkaasi kala duwan haysa madaxweynaha haatan waxa kale oo mucaaradad xoogan uu ku hayay madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland mudane Daahir Yaala Kaahin waqtigaas oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye madaxweyne Biixi iyo Siilaanyaba waxa ay eedeymo xoogan u jeedin jireen madaxweyne Daahir Yaala Kaahin isagoo eedeymihii ugu adkaa kala kulmay hogaanka kulmiye ee waqtigaas oo ay kamid ahaayeen Siilaanyo iyo waliba Muuse Biixi Cabdi bal waxaynu markan daawanaynaa eedeymo nooceeya ayuu madaxweyne Biixi u jeedin jiray madaxweyne Daahir Yaala Kaahin haddii xafladii dawladdu qabo weydo waxay doontaa wax ku sheegteen xaq waxaan u leedahay inaad bulshada ku celceliyo dadweynaha haddaad dhalinaysa cidda qabo weydo maanta doorashada haddaad cid dhalinaysa warqadaada soo bedelaysa ma aha buuq ma aha soo hormaraya ma aha buuq xalay toole waxa hadday madaxweyne Daahir Yaala Kaahin 8 sano madaxweynaha anigu sidaan u qiimeeyay khudbadu wanaagsan waxyaalo badan baa ku raacsan wixii uu akhriyay wuxuu akhriyay ku raacsanay Soomaaliland nabadgelyada ay laashato oo maanta doorashada cadow aan naga hayn baa soo dhexgali karaa wada fijignaan oo aan nabadgelyada aad iyo aad xajino bulshada kaashiro waa ku raacsanay haddii ay la noqoto koobanka talada ay waxay noqotay in lagu caawiyo iyo in lagu mudaharado iyo lagu dhacayma soo baahan way la noqotay isaga hoggaanka haya isaga xaafiyo wuxuu yiri waxaan doonbay in doorashadu loo socoto muddo loo socoto markaas aasaan u dhaway inaan u qaban haday saa u muuqatay teeda xilib uu lagu joogo ma taasaan loo yeelay waxa la yahay dadka u qaybsan la yiraahdo civil servant sharcigeena iyo kaadu kale wuxuu qorayaa nin qof ku rayado warba hadii uu doonayo inuu siyaasadda ka qayb galo waa inuu soo baxo sharciga dawladnimadu lagu kala qeexaya qofku laba chance ma wadeen karo anigu oo siyaasi oo kulmiya haddana ma noqon kara taliyaha booliska ma noqon kara madaxa bank ma noqon kara barasa ma noqon kara shaqaalaha arta waa xaalani civil servants waa kalaad waa laga daba tagi doonaa waxay ka weytahay waa musuq weyn nin civil servant oo xisbiga u adeegaya oo murashaxaana u adeegaya oo xafiiskii lagu aaminay oo isticmaalaya xisbiga oo xaaran waxa la iskaga harayna maaha waana la iska daba tagi doonaa dowladda dabeemanaya maxkamadda soo saaraya xalay dadka ka hadlayay TV-ga qaar إلى الرياضة ومفروض لو نسنا ونشر سنا شغاليه سنا حبوا هاي سهلة الكلام برسالة ماريا تريا إذا بانكايا وكل هذا يكون أمور كثير شباب ما كانوا حلايا هاي بس الرياضة وبزوديها وضوء بس بيجار من الويناي
hadalkii aad ku hadashay hadal fiican buu ahaa shaqaalaha ka muuqata hadduu daacad ka yahay daawadayaal inkastoo ay isku xisbi ahaayeen Muuse Biixi Cabdi iyo Siilaanyaba haddana madaxweyne Siilaanya waxa uu eedeymo kala kulmay Muuse Biixi Cabdi waqtigaas oo uu ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana eedeyntaasi keenay kadib markii uu muran la geliyay musharaxnimada xisbiga kulmiye waqtigaas oo xukuumadda Siilaanya ay bilowday in la beegsamo musawiro uu lahaa Muuse Biixi Cabdi isagoo maalintaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu madaxweyne Siilaanyo uu ku yiri waxa la xidhiidha taageerada xisbiga oo loo xidhay sawirka gudoomiyeeste xukuumadda waxaan weydiinaa madaxweynaha markuu noqday dambi sawirkaygu kaaguna uu noqday xalaal waxaanu ka diidanahay waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daaqliga madaxweynuhu isla raaceen oo sheegnay in la yidhi waxa la qarxiya rag madaxnimo doonaya waan ka xumaa in madaxweyne afkiisa soo baxdo isla shirkaasi jaraa'id madaxweyne Biixi waxa uu qaranka Soomaaliland uu maanta madaxweynaha ka yahay ku marxaati furay in Soomaaliland ay ku sugnaayeen shakhsiyaad qaraxyo ka geystay dalka Djibouti taasoo waqtigaasi dawladda Djibouti ay keentay inay xidhato xadka ay la leedahay Soomaaliland waxaan weydiinayaa wasaaradda amniga oo ka yahay wasiirka daaqliga ragii Djibouti qarxiyo waxa la sheegay inay dhowr iyo 20 cisho Hargeysa joogeen oo ka baxeen dhaawac ka weyn iyo ceeb Soomaaliland ka weyn oo dur saaran ma jirto taasoo hela iyo cid qaxisay inta loo isku wareegsanay mucaaradada xooggan oo madaxweyne Biixi uu ku hayay madaxweynayaashii koowaad iyo labaad ee Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur iyo Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal bal waxay bulshada maanta ka dharagsan tahay eedeymaha waqtigaasi jeedinayay muxuu isagu ka bedeli doonaa balse su'aashu waxay tahay labadaasi madaxweyne Allah ha u naxariistay shakhsiyad nooceeya ama aragti nooceeya ay ka aaminsanayeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in dan caama ay had iyo jeer ka weynaato danta shakhsiga danta caamka haddii la waayo taa mujtamac dhismaya ma jiro rag aan u qirayo haddii bilad la bixinayo qaranka Soomaaliyeed markii hore ee cadow laga dilayay iyo markii ay maalkan dhexdeeda iska qabanay ragniftooda halkaa dhigay oo maanta aan maxay ahayd ka bilaabay ka magacaabay Axmed Xuseen Ciidiid iyo Musabbix ka tilmaami karo gudoomiyaha sidii fiicneed aad u wanaagsaneed oo shirka inuu ku waday inuu ku hogaaminayo xanuunka Muuse Biixi aad buu halkan ugu baranay maanta la kabsanayo dadka wala soo sheekeeyo waxaan ku yiri waxaan rajaynayaa inaad noqoto Muuse aan ku arkay shirka Muuse laga sheekeeyay inuu la noqonin waxaan markaad aragto ammaan muxuu ahaa aw ku aragto yimba baran karta madaxweyne Biixi waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka qabta hoggaanka dalka ee maanka ku haya xaalad kasta ay Soomaaliland soo martay muddadaas 27 sano ahayd ay Soomaaliland jirtay waxaana qof waliba uu leeyahay macallin uu wax kaga daydo haddii ay tahay siyaasad maamul iyo waxyaabo kalaba marka ay hayeen macallimiintii madaxweyne Biixi waa kan isagoo ka jawaabaya su'aashaasi laba macallin baa siyaasadda soo maray oo muddo daris ka bartay dadwaa Siilaanyo wuxuu ka baxsaday Soomaaliya iyo Afweene 1982 ilaa maanta muu qaadan baasaboor Ingiriis arrintiisa iyo dumarkiisa way qaatay way la noqon weeyay in dadkiisa intuu ka cararo uu noqdo nin Ingiriisa ama Maraykana uu ka xishoodo haddii la doortayna oo la yaqaanayna intii uu qabanayay iyo intuu qabtay ay horumarina waa looga garaabay markaa muu noqonin siyaasiyiinta marka ay dadka codka ka helaan iyagu dantooda ka fashada waana lagu yaqaan waa laga yaabaa dad dhegeysanaya inay dhahdaan dowladdiisa dhalinyaro badan bay leedahay xukuumaddiisu waa intaasoo wasiir oo awood leh waa laga yaabaa inay jiraan dad wasiirah ama agaasimayaala ama xilkala haya ama xisbigiisa ah oo dhaliila keenay oo siduu doonaya aanu shaqayn qaar la bedelay qaar joogaba laakiin isagu wuxuu kaga tegayaa halkan mara nadiif ah oo taariikh macallinka kale aan la soo shaqeeyey isagana yar baan ka barto waa maxamed xaaji Ibraahin Cigaal
maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu dhaxlay keligii isagoo walaal lahayn lacag markaa u dhigmisay ta dahabshiil iyo ta talisam iyo ta oomaar iyo ta abka oo laysku daro lacag ka badan beriga ah ayuu dhaxlay keligii 600 oo rubood buu dhaxlay waxaa laga yaabaa geeska afrika oo dhan nin wax 100 rubood haysta ilaa jiray ilaa Kenya ilaa Ethiopia adduunka dhanba dhowr iyo konton keligii aan cidlo wadaagay asal buu soo saaray dowladda Soomaaliland ayuu ku dhisay waa wareystay mabaawrka jecleed meed ayr waxaagan chief oo shaqsi ahaatid wuxuu yiri ma inay waxa ii noqon weyday inaan keligay taajir noqdo oo keligay calooshada dhoregto iyadoo inta igu xirnay intaan aqaanaba gaajaysantii saabka waa lagu xiray oo haddana lagu xiray oo dhowr iyo toban dhameeyey oo soo baxay qaxwati ma qaadan oo iglan ma cararin abdoo qol yar iska fadhiyey dalkii baa la xoreeyey isaga oo maraha aan ku dollar haysan buu soo noqday ninkiina cigaale waxaa soo lahaa shil isagoo hayn ayuu yimid oo uu tala dalkan ka qayb galaya saabka barbara waa midna wuxuu ku soo degay halkii ila jiray yarayd odayaashooda maxaa doonaysaa baa layidhi wuxuu dee anigu waxba dooni maayo waxaa doonayaa un maanta dalkii la xoreeyey anigu lacag ma hayo oo lacag idinmaan keenin maan soo shaqaysan laakiin waxaan hayaa waxaa doonaysaan baan aqaanaa farsamadeeda inaan idinku caawiyo ciddaa doontaa u dhiibto saxabka anigu waxaan aqaanaa waxaa af ingiriiska lagu dhahay state craft oo ah habka dowlad loo dhiso ama loo maamulo oon ugu waaya aragsan dadkan maanta nool marka waxaan doonayaa guurtiid inaad samaysateen iyo nabadan aad samayseen iyo inamada runka aad ka diteen waa ku mahadsantihiin laakiin waxaan talaad ka siinayaa saa wax u dhisan lahaydeen shirka aad boorama u socotaan rag badan oo Soomaaliland oo jabhadii u badan oo odayaashii u badan 5 bilood baa la fadhiyay boorama soo maqashaan 5 bilood waxa la lahaa waxa is soo sharaxay oo halka joogay dhowr iyo 10 oo deel faca jaamacada kamid aha maxamed xaashi cilmi baa kamid aha cumar afta qaalib baa kamid aha waxa joogay duqsi baa joogay haba tirin maxamed haraac baa joogay oo sharaxay waxa la intaa waxa la wareejinayay wariyaa maanta baasha sibaynu kala daadsanahay yaa inoogu aqoon badan isu kan urur kara shirar badan baa la iska daba xuray kol odayaal baa loo dhigay kol qaab reer baa loo dhigay kol basi baa loo dhigay 5 bilood wixii la filkinay waxay ku soo noqotay in cigaalo cid kuma dhaantay adaan doonayaan ku riixno khudbadii uu ku jawaabay dugsiga maalintii la yidhi hadal anuu habeenkii waxaan ka mid ahaa rag sodomeeyo loo diro la yidhi wariya ahay siyaasi baa tahay cadha badanna way ku haysaa afeen waa kii ku xidhay waan waxaad meesha toa kursi ahna wareerina aqbalo hana celcelina baashi laga guddoono u soo diyaargaro soo xayido aroortaan idiin jawaabay aroortii uu batagay halka la yidhaahday iskuulkii sheekh Carjoor waa berigaan YouTube ku jiray kala maqan waa la helay iyadoo duwa kuwii kale waa ku helay wuxuu yidhi waayarnimadeeda siyaasadeed maanta arday la yimid haddii aad weydiiseen haddii rag badan oo xalay ila talinayo loo soo diray yimid haddii aan walba ka rogay waliba ragga xigta lagu soo diray waxaan ku talinayaa koow in Cabdiraxmaan Tuur doorto oo lagu celiyo odayaashii xaafadiisa si tirinayay way ka gabeen ila faq waa haaye waliba ninkii ay lahaay waan ridaynaa adigaan ku geeyay markuu yiri way ka gabeen waanu sababay wuxuu anigu la tariyaa ku wanaagsan maanta sidaa iyo saa la doorto dadkii talinayay meesha joogo dhan baa diiday aan soo gaabiyo waa loo dhiibay dabeetana waanu wada shaqayn laba qof oo aad u kala fogna waanu ahayn marka hore isagu ninkaa lacagta badan dhaxlay buu ahaa anna geljiraan nolosha ka soo galay iyo miyi waxaan caanaheed baan hayay waa laba ina cigaal askartu way dhibto hambar bay qabteen isagoo wasiiraho qolada askarta indho kullu ku eegay anna askari baan ahaa waa tasaxaade jabhadda dhegtu ka maqla mooyaane jabhadnimada muu aqoon markaa jabhaddana wuu la yaabay waan soo dagaalamay
oo kaadana soo cabo dhaawacbaanay haddana kay xigaa joogaan dilaya oo dariiqan xidhaya wuxuu ku wareeray warniyo horta maxaa doonaysay muxuun baa leynaysaa habeen walba su-aashaasi weydiin jiray isagu wuxuu ahaa nin intuu ilaahay abuurayba ama xoolihiisa ha helo ama xoolo kale waaya inuu wax bixiyo mooye waxba doonayn hal qiso aan doonaya inaan taariikhda ku qoraba maan sheegaya maalin buu i yeedhay waraasul wareye ha intuu madaxiisa adhaa bal haddayna daawud cigaal la hadlo maxay dhahay tolow ina daawud baa maxaa dhacay kolosay tidhi laba waftile way yimaadeen mid galbeed iyo madbari oo odayaale meeshana iska dhaaf wax kale xitaa madax ma taalo raashin kaliya iska daaya xataa beri iska daaya lama hayo nin la yidhaha ibraahiyey waa la yaqaana soo maha ibraahiyey nin la yidhahdo berigaa bakharida ahaa oo adhila ahaa iminkana wuxuu ku leeyahay kaaliyaro shitaala halkaa laamid ah oo bakhaar weyn haysto berigaa adhilo weyna ayaan gaadhi dhahaynaa bakhaarkiis hor dhigay kolasaanu ku dar xawaash ku dar markaan buuxiya ku dhaqaajiya korsiyaa lagu qorayaa odayga baa loo sheegay markaasuu yihi wallahi jawaabta waa caqli beelan marnaba wax tarta ninkan waxaa ka bartay falkinta dowladnimada kow ta ugu horeysa waxa weeyaan sabirka ninkan cigaal la idhahdaa bini aadmi ka adkaysi badnaa ilaahay ma abuurin horta 10 sano xabsi ku jiro wuxuu yidhi weligay xabsiga kama bixin quraanka ku leeyahay yaraantiisii ilaa intuu noolaana malaha 100 mitir muu lugeyn mar walba lagu fadhiyi jiray lagu jilbo ma xanuun jiray marka dama xanuun karo caloosh u dhintay caafimaadkiisu 100% buu ahaa sabirka wuxuu kari karaayay inuu imika fariisto duhurkii dabeetana wax walba lagu yiraahdo shakhsi reer abtigii isaga nin waliba bariga laba garxishoon wuxuu doono ku yiraahdo oo iska dhageysto oo saadun gurahaye uu wado ilaa kowda caawa dabeetana caawa ku yiraahdo isoo qor wixii la uriyo dhan isoo ka soo rido ikan qolol waxa tiri aroortan ku jawaabay maxaa la qoraa anagu labadii aniga Cabdi Idris waa qodi jiray Cabdi Idris Allahu xariisto maxaan waxa qoraa ara dhikar baan haygabeeyay dhikar baa ku qaaday wax alla xirdoon lagu hadlay dabeetana wuxuu dhoolo jiray dawladdu way ka weyntahay qabiil way ka weyntahay qof mashaakilka dalka dhan baa lagu keenay hadaad madax tahay waxa lagu keenay mashaakilka xalisho laguma keenayo waxa wanaagsan laguma keenayo shay dhamaaday farxadda cid kale ah qolada dibadda joogtaa leh adiga waxa lagu keenayaa dhibaatada iyo midamada ka adag tahay iyo culayska inaad xaliso oo dadana farxadda dibadda u dirta laga rabaa haddaana taa karayn dee orod maxaad furo orod dukaan furo isagana 10 ka soo qaatay madaxweyne biixi waxa uu qareeray macallimiintiisa hay'ad maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo axmed maxamed maxamuud Seylaanyo oo labadaba madaxweyne ka soo noqday qarankan Soomaaliland aan wasa labada madaxweyne ee hore ee la soo shaqeeyay isagu sheegay in macallimiintiisu yihiin maxaa uu kaga dayan doonaa madaxweyne biixiga maanta talada dalka haya wasoo saarista Ibraahim Axmed Maxamed Ibraahim Shiine anigoo kuraaso idin la socodsiinaya Cabdisalaam Cabdirashiid Ali oo isaguna barnaamijkan qaybta ugu weyn ee qurxinta iyo habeentaba ka qaatay aniga iyo asxaabtii kale ay galab qaadatay iyo heesta barnaamijkan kaga tagayno barnaamijka ku xigeen dib u kulmi doono waxaan iga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh Come on,
dadku ayda magansado